سنانتا أبيال الداقة لما يا مدية مدية ومدية دادكيسا مدية مانتا دالكيا دادكبا مدية مدية دالكيا دادكبا مدية مدية دمان دادكوا مدية مدية مانتا دادكوا مدية يور القرن مثلا دايك قيب سنانتا وبيال الداق سيدك القعال كله حماسة له وبسوا أشياء ما أنت إليك صوب قاتار هل صوب الكلاش وينه كوار وحليا هاي فهد تمام وحد الله هاي وقاعدين كله اللعبة يوم هنبقى الكوب كله واحد صوت وين يا تمام الجوينك واحد صوت وين يا تمام قضية شغل أدرتها اللي بندي كسوق يبقى وين نجتهي واحد صوت وين يا أول مقادين يا مشاهدين تا والسيجارة قبهن يا إلى فقدنا من صوت يبقى مشاهد شرنا شريف يسأل هل لما مشاهد أفضل كان وحضر في الشديد وصاح الكبري وشقادر يا ورمها النقيا وحد قضياش مرحبا بيتها يوم التشرف دا واحد دوري عينا هلكن كما قعابو وفدك الكلمي ولدقائك إثيوبيا waxaan leeyahay waa soo safarteen waan idinka mahadnaqaynaa waxa weeye shirkeennii beritoole ayuu noqonayaa shirkii gabagabadii munaanadku waxaan u taaganahay aanu musharax u nahay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada iyo xoghayaha ergooyinkii dhammaan way ka soo qayb galayeen beritoole shirkaas wuu soo gabagaboobaya waxaanu insha allah rajo ku qabnaa in lanagu doorto qorshaha aanu wadno lanagu doorto waxa aanu la damacsanay qarankan iyo dalkan inaanu hiigsigiisa iyo himilooyinkiisa kaga rumayno qorshe ballaaran oo dhaqandhaqaale mid bulsho ayaanu wadnaa waxaanu soo diyaargaraynay rag tababaran oo aqoon-yahana oo xadiid ama bir ah oo dalkan ku hogaamin doono mabaadii iyo cadaalad iyo wax ay dadku u midaysan yihiin taasoo noqon doontaa mid bedeli doonta insha allah horumarka usoo jiidi doonta qaranka soomaaliya waxa kaloo aan mahadnaq aan la koobi karayn u soo jeedinayaa haweenka soomaaliya yaa haweenka ururka mideeye oo mar kastaba iyagu laftabar u ah ururkan mar kastabana u hagar baxa maalintii dowladda waxaanu ku shaaraynaa ururadayadu inaanu gudbineen ansixiyey koonto boqolkiiba 20 oo dumarka golaha fulinta golaha dhexe waxa aan doonayaa laba arrin in aan dul istaago Somaliland intii halgankii dabadeed markay guulaysteen waxa Somaliland ay samaysay dastuur iyo sharciyo madguuraana oo dadka u dhexa oo lagu kala baxo furitaanka ururadu waxay ku salaysan yihiin shuruuc iyo xeerar la ansixiyey dastuurkuna wuxuu siinayaa muwaadin kasta oo qarankan u dhashay rag iyo haween in ay leeyihiin xuquuq gaara oo ah in la dooran karo waxa ay dooran karaan waxaanu ugu baaqaynaa xukuumadda iyo axsaabta qaranka waxaanu leenahay sharcigu waa muqadas xeerarka dastuurka ku xaddan iyo qodobada ku yaala
shacbiga muwaadinka ah iyo ninka madaxdaas sibay u wada saameynayaan xuquuq siman bay siinayaan waxaan aanu aaminsanay Somaliland waa dal midnimadiisu ay muqaddas tahay waxaanu halkaa ku qoray mideeye oo u taagan quluub midaysan unbaa dhali karta qarankiisa ujeedada aanu ka leenahay waxa weeye midnimo ilaahay uu siiyey qarankeenu nabad iyo caano ayaa lagu joogaa laakiinse kelmadda mideeye waxa weeye xoojinta midnimada waa xoojin weeye markay wiiqanto ama siyaasad la isku qabsado ama dadka la kala qobqobo qabaa'il loo kala kaxeeye mideeye waxa weeye waa siyaasadii iyo mabaadi'dii mideynaysa qaranka Somaliland dadkeedu waa ehel waa dad is ah oo yar ab ah dad cadow isu ama aha tartan siyaasadeed baa lagu jiraa kuraas baa loo tartamayaa annaguna waxaanu aaminsanay inaana Somaliland dad cadow isu ahayn axsaabta qaranka saddex isku waxaan leenahay haddaanu uradii nahay tartan baanu diyaarinahay haddii ay naga guulaystaanna waanu aqbalay albaabkaasaanu ka baxaynaa haddaanu guulaysanana warkoo qabayna waxaan ku gabagabaynayaa waa waqti salaadiiba taagan waa mahadsantihiin salaan kal iyo laba ayaan ii soo jeedinayaa